wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Jubbaland uu saakay ka qarxay nawaaxiga deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka oo si gaar ah uga dhacay deegaanka lagu magacaabo Manarani ayaa la soo warinayaa inuu ahaa mid aad u xooggan, kaas oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Lama oga ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan saakay ka bilowday deegaanka Manarani oo qiyaas ahaan 30 kiiloomitir u jira deegaanka Raskamboni oo maalmihii la soo dhaafay dowladda federaalka ay geysay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka saakay ka qarxay deegaanka Manarani. Ha yeeshee maamul goboleedka Jubbaland oo dhankiisa war ka soo saaray dagaalka saakay ka dhacay deegaanka Manarani ayaa sheegay in weerarka ay soo qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay iska difaaceen. Ciidamada Jubbaland oo ku guda jira dadaaladooda isdifaacista ayaa jab xoog leh u geystay maleeshiyaadka xamar laga soo daadgurayay, iyadoo ciidamada Jubbaland guulo wax ku ool ah ka gaareen weerarkii ay soo qaadeen. Maleeshiyaadka laga soo daadgurayay xamar ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka Jubbaland. Jubbaland waxay sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay inay la wareegtay difaacyadii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ku lahaayeen afaafka hore ee deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose, isla markaana khasaarooyin kala duwan ay gaarsiiyeen ciidanka dowladda. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanada saakay lagu dagaalamay ayaa sheegaya in xaaladdu ay weli tahay mid aad u kacsan, waxaana dhinacyadu ay kala helayaan gurmadyo dheeraad ah oo ku sii qulqulaya furinta hore ee uu dagaalku ka bilowday saakay. Ugu dambeyntii dagaalkan saakay ka dhacay nawaaxiga deegaanka Raskamboni ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo iska soo horjeeda ay ka wadeen deegaanada hoostaga deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ciidanka dowladdu ay si buuxda ula wareegeen deegaanka Raskamboni. Arrimahan ayaa salka ku haya khilaafaadka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee ka dhashay dib u doorashadii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo markii saddexaad isku doortay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose bishii la soo dhaafay, iyadoo dowladda federaalkana ay si weyn uga hortimid doorashadaasi oo ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah. Dadka ku dhaqan Raskamboni iyo nawaaxigeeda ayaa walwal iyo walaac xooggan ka qaba in mar kale uu dib u bilowdo dagaalkan u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo haatan yara qaboobay, waxaana laga cabsi qabaa in mar waliba uu dib u qarxi karo dagaalka maadaama ay weli is hor fadhiyaan labada ciidan isla markaana ay kala helayaan gurmadyo xooggan.